kulan ballaaran oo lagaga hadlayay wadaniyada iyo ilaalinteeda ayaa lagu qabtay dugsiga waxbarashada ee Seyo ee magaalada Ceergabo. kulankan ay suura geliyeen ururka dalada dhalinyarada ee Sonyo ayaa waxa ka soo qayb galay ururada dhalinyarada ee gobolka Sanaag iyo marti sharafaad u tiro badan. waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dalada dhalinyarada ee Sonyo ee gobolka Sanaag Xasan Ibrahim Xirsi oo faahfaahin ka bixiyay hadafka iyo ujeedada kulankaasi looga goleeyahay iyo micnaha wadaniyadu ay xambaarsan tahay. barnaamijka kale wadana wuxuu daba socdaa barnaamijyadii hore ee caadadeenoo ahayd ee isku yar baraarujin jiray kaas oo ay Sonyo soo qaban jirtay Seyo ay furin jirtay barnaamijyada aynu hore soo arki jiray oo daba socdaa waxa weeye wacyigelinayna hadba waxyaabihii markaa bulshada u baahan tahay aynu isku wacyigelin jiray kadibna aynu ku sii wacyigelin jiray bulshada magaalada degan. barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay wadanimada iyo qofku suu muwaadin yahay kale iyo wax looga baahan yahay. wadanimada uu garanayna qof waliba iyo ummad walba waxa leedahay wadan ay xaqooq ku leedahay isaguna xaq ku leeyahay. wadanimadu waxay sheegaysaa wax kasto dhibaato ku ah wadankaaga ama u keenaysa sharaf darro ama dhibaato muuqan karta ku ah. ayaguna halkaas ka hadlay xubnaha u tiro badan oo dhamaantoodba ku nuucnuucsaday sida looga baahan yahay la aamino dalkeena hooyo loogana dheeraado dhibaatada tahriibta iyo hanqaltaaga wadamada shisheeye. marka hore waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye wadaniyada qofka marka wadaniyad laga hadlayo hadaan qiimo u sameyn ama aanay wax ku soo kordhin marka laga hadlayo waxa fiican in wadaniyada horta laga wada qayb qaato qof walba inaga mid xil iyo mas'uuliyad baa saaran. anigu sidaan wadaniyada ilaahay dadka ku beeray weey ninba intuu doono ilaahay ha siiyo. horta wadaniyada marka laga hadlayo bani aadamku markay ku nool yihiin wadan ay wadan u dhasheen qof waliba meesha uu joogo iyo bay'ada uu ku nool yahay mas'uuliyad baa ka saaran ilmaha yar mas'uuliyad ka saaran tahay qofka xoolaha jirta waxa mas'uuliyad ka saaran tahay waxa weeyaan meesha xoolaha uu dhaqanayo. waa maxamed xasan saraaf TV-ga qaranka Soomaaliland Ceergabo.